Videogan waxaynu ka eegi doonaa waa maxay public administration, waa maxay farqiga u dhexeeya public administration iyo private administration. Maadada public administration maada adag miya? Imisa ayay ugu qaadanaysaa barashadeeda maadadan? Maxaa lagu barayaa maadada public administration? Maxaa kuu sahli kara barashada maadadan? Shaqo ma lagu helaa shahaadada maadadan? Mushaharka uu qaato qofka haysta shahaadada maadadan mid sare ma yahay? Halkee baad ka shaqayn kartaa haddii aad barato maadadan? Dumarku ma baran karaan maadadan? Waa maxay faa'iidada barashada maadadan? Waa maxay khasaaraha barashada maadadan? Shaqooyin caynkee ah ayaad qaban kartaa marka aad dhammayso barashada maadadan? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogtaan. Waa anigu Macallin Shariif. Videogan waxaynu ka eegi doonaa maadada public administration ama maareynta bulshada. Walaalo badan ayaa iga soo codsaday, sidaas daraaddeed ayaan u sameynayaa videogan ka faa'iideysasho wacan. Waa maxay public administration? Public administration waa qaabeynta siyaasadaha guud sida hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ay ula tacaalaan mushkilaadka siyaasadeed ee saameyn kara bulshada rayidka ah. Waa fulinta sharciyada iyo xeerarka kale ay soo saaraan dawladaha, hay'adaha madax bannaan iyo kuwa ganacsiga. Waa horumarinta qaybaha dadweynaha iyo hirgelinta siyaasadda dawladaha heer deegaan ilaa heer caalami. Waa fahamka doorka maamulka dawliga ah iyo daboolidda aragtiyaha maxalliga ah. Waa maamulka guud ama maareynta bulshada, hirgelinta siyaasadaha dawladda. Waa qorsheynta, hagidda, isku dabaridka iyo xakameynta howlaha dawladda. Waa maxay farqiga u dhexeeya public administration iyo private administration? Public administration waa maamulka guud iyo maareynta kheyraadka si habsami leh si loo gaaro ujeedooyinka ay dawladdu u dejisay. Private administration waa maamulka gaarka ah, waa maamulka iyo abaabulka ganacsiga gaarka loo leeyahay. Maada adag miyaa public administration? Imise ayay ugu qaadanaysaa inaan barto maadadan? Maadadan maada adag ma aha oo waxaa aas-aas u ah hufnaanta, isla xisaabtanka, kabista, waxtarka iyo sinnaanta oo dhammaantood u baahan in qofku uu yahay qof furfuran, codkar ah, fahmina kara dabeecadaha bini'aadamka. Barashada maadadan waxay kugu qaadanaysaa 3 ilaa 4 sannadood inaad ku dhammayso. Si aad u barato maadadan waxaad u baahan tahay inaad dugsi sare ka haysato shahaadooyinka maadooyinka luqadda Ingiriiska, xisaabta iyo dhaqaalaha. Maxaa lagu baranayaa maadada public administration? Public administration waxaa lagu bartaa arrimaha la xiriira dhowrista hantida dadweynaha, la xisaabtanka, falanqaynta xalalka, xallinta khilaafaadka, maareynta wakaaladaha dawladda ee ku shaqada leh cadaalad u raadinta dambiyada. Waxaad baranaysaa making policy oo ah sida loo qoro aragtiyaha siyaasadda, iyo public management and leadership oo ah maamulka iyo hogaaminta dadweynaha. Waxaad kaloo baranaysaa public financial management oo ah maamulka maaliyadda dawladda, iyo political science oo ah cilmiga siyaasadda. Maxaa kuu sahli kara barashada maadadan? Waa inaad tahay qof degan, codkar ah, xirfadaada xisaabtuna ay aad u sarreyso. Waa in ku hadalka iyo qoraalka luqadaadu ay aad u sarreyso. Waa inaad tahay qof ka fikiri kara cawaaqibka ka dhalan kara tillaabooyinka aad qaadayso ka hor inta aadan qaadin. Waa inaad tahay qof akhrin badan, taariikhdana aad wax uga taqaano. Shaqo ma lagu helaa maadadan? Haa, shaqo waa lagu helaa. Waddankan Ingiriiska qofka barta maadadan wuxuu ka shaqayn karaa meel kasta oo u baahan maamulid sida caafimaadka, isgaarsiinta, gaadiidka dadweynaha iyo meelo kale oo badan. Qofku wuxuu noqon karaa la taliyaha maamulka dadweynaha ama maamulka magaalada amaba duqa magaalada. Wuxuu kaloo noqon karaa maamulaha lacag ururinta, shaqaalaha horumarinta iyo kuwa gargaarka caalamiga ah. Khaasatan marka ay musiibooyinka dhacaan, wuxuu la shaqaynayaa dhaqaatiirta, booliiska iyo shaqaalaha bulshada rayidka ah. Mushaharka uu qaato qofka haysta shahaadadan mid sare ma yahay? Dadka bartay maadadan ee ku nool waddankan Ingiriiska mushaharkoodu wuxuu ka bilowdaa 25,000 oo pound sanadkii, taas oo u dhiganta $33,000. Mushaharka qofka uu qaadanayo
hadba waxay ku xiran tahay meesha uu ka shaqeynayo. haddii uu u shaqeynayo dowladda mushaarkiisu intaas waa uu ka badan yahay. halkee baad ka shaqeyn kartaa haddii aad barato maadadan? waxaad ka shaqeynaysaa xafiis, waxaadna u shaqeynaysaa laba mid: hay-adaha dowliga ah ama kuwa aan dowliga ahayn, sida dowladda hoose, laamaha ammaanka, ama kuwa fulinta sharciyadda, caafimaadka, daryeelka bulshada, waxbarashada, ama maamulka ganacsiga. dumarku ma baran karaan maadadan? haa, dumarku waa ay baran karaan maadadan, laakiin weli waxaa jira matalaad la'aan dhanka hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn. daraasad ay soo saartay jaamacad ku taalla waddankan Ingiriiska ayaa lagu sheegay inay aad u yar tahay haweenka ka shaqeeya dhanka maamulka dowladaha, taasoo saameyn karta natiijada siyaasadda ee hay-adaha dowladda. waa maxay faa'iidooyinka barashada maadadan? waxaad fursad u helaysaa inaad barato maadooyin badan oo isku dhaf ah, sida cilmiga dhaqaalaha, isgaarsiinta, maaliyadda, sharciga, caafimaadka, iyo maamulka. waxaad awood u yeelanaysaa inaad hormariso tayadaada hogaamineed maadaama aad la shaqeynayso aadna maamulayso dad. waxaad fursad u helaysaa inaad ka shaqayso hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ee gaarka loo leeyahay. waxaad fursad u helaysaa inaad qabato jagooyinka muhiimka ah ee dowladda, sida awoodda fulinta, ku talinta isbeddelka, oo dhammaantood saameyn toosa ku leh dowladaha hoose, kuwa dhexe, iyo kuwa caalamiga ah. taasoo macnaheedu yahay inaad qayb firfircoon ka qaadanayso isbeddelka bulshada iyo midda dowladeed ee dalkaaga. waa maxay khasaaraha barashada maadadan? public administration ama maaraynta bulshada waa shaqo very competitive ah. waa shaqo helitaankeeda tartan loo galo. waxaa laga yaabaa in xirfadaada maaraynta bulshada ay aad u sarreyso. public administration ama maaraynta bulshada waa shaqo culus, cadaadis iyo isku buuq badan ayay keeni kartaa, iyo in qofka lagu eedeeyo waxqabad la'aan haddii uu ku guuldarreysto meelmarinta siyaasadaha dowladda, amaba uu shaqadiisa u qabsan waayo sidii saxda ahayd. shaqooyinka ugu sarreeya ee qofka public administration barta uu qabto waa shaqooyinka dowladda. waddamada reer galbeedka process ayaa la wada maraa, mar kastana shaqada waxaa hela qofka ugu firfircoon ee ka soo bixi kara waajibaadkiisa shaqo. laakiin haddii aad Soomaali joogto, way adag tahay inaad hesho shaqada dowladda adigoon qabiil ama laaluush waxba ku raadin. shaqooyin caynkee ah ayaad qaban kartaa marka aad dhammayso barashada maadadan? shaqooyinka aad qaban karto waa ay fara badan yihiin. waxaad noqon kartaa secretary, business administrator, human resource specialist, event coordinator, executive assistant, foreign correspondent, foreign service manager, foreign service officer, government relations manager, mayor. waxaad noqon kartaa tax examiner ama canshuur baare. waxaad hubinaysaa in canshuuraha kambaniyaasha lagu leeyahay ay khasnada dowladda soo gasho marka la gaaro waqtiga saxda ah. waxaad noqon kartaa budget analyst, falanqeeyaha miisaaniyadda. waxaad hubinaysaa in hababka ugu waxtarka badan loogu qaybiyey lacagaha iyo agabka kale dhammaan hay-adaha dowladda. waxaad noqon kartaa fundraising manager, maamulaha lacag ururinta ee ururada aan faa'iido doonka ahayn. waxaad kalood ka shaqayn kartaa NGO-yada iyadoo hadafkaagu ugu weyn uu yahay inaad xalliso dhibaatooyinka bulshada, sida caawinta dadka tabaalaysan, amaba inaad xalliso dhibaatooyinka deegaanka iyo yareynta saameynta wasakhowga. waxaad noqon kartaa city manager, maareeyaha magaalada, oo waxaad hubinaysaa in dhammaan waaxyaha dowladdu ay si hufan u wada shaqeeyaan si loo ilaaliyo dhammaan howlaha magaalada. ugu dambeyn, haddii aad xiisaynayso cadaaladda bulshada, anshaxa guud iyo maamul wanaag, oo aad doonayso inaad ka noqoto dowladda hogaamiye sare, mid dhexe, ama mid hoose, barashada maadada public administration waa qayb muhiima oo ka mid ah tababarkaaga xirfadaha maamulka iyo hogaaminta, si aad ugu guulaysato shaqo kasta oo aad ka qabato qaybaha kala gedisan ee dowladda. shahaadada maadada public administration ama maaraynta bulshada
waxay kaloo kaa caawinaysaa inaad ku guulaysato shaqo kasta oo aad ka qabato hay-adaha aan dowliga ahayn, qaybaha dadweynaha, ganacsiga gaarka loo leeyahay ee faa'iido doonka ah iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn. digrii kasta oo aad doonayso inaad samayso waxaan kugula talin lahaa 3 su'aalood isweydii. durba marka aad dhamayso maadadan oo shahaadada aad qaadato, shaqo ma ku helaysaa shahaadadaada, mise waa tacab inaad hesho shaqo? mushaarka aad qaadanayso ma yahay mid sare oo kaafinaya naftaada iyo tan reerkaagaba? meel kastoo aad tagto ma ku shaqaysan kartaa shahaadadaada, mise shahaadadaadu waxay ku xiran tahay hadba meesha aad joogto? 3 su'aalood jawaabtooda hadday haa tahay, samee, waa maado wanaagsane. la wadaag walaalaha kale. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.